Wuxuu mooday in dadka walaalkiisa dilay ay yihiin cadowgiisa, laakiin ma ogan in dadka walaalkiisa dilay ay yihiin dadka uu aaminay. Waxay dilayaan dadkiisa oo dhan ayagoo khiyaanayo. Ma awoodi doonaa inuu ka badbaado khiyaanada ay asxaabtiisu sameeyeen? Mana waa gudi doonaa familkiisa? Mase sirta khiyaanada ayaa burburin doonta noloshiisa? Filimkani wuxuu ku bilaabmayaa Victor iyo saaxiibkiisa Wasim oo daawanaya boxer meel ka dhacayo. Kadibna way soo baxayaan banaanka. Markay u soo baxaan waxaa lasoo weeraraa Wasim oo meeshaas ayaa lagu dilaa. Laakiin Victor waa nin indhoolo ah oo iska daynayaan. Kadibna waxaa arkaynaa Wasim oo meydkiisa la joogo. Waxaana meesha jooga Victor. Waxaana imaanaya ninkii Wasim dilay. Kadibna wuu fahmaa Victor inuu ninkan dilay Wasim. Kadibna Victor waa la afduubanaya. Waxaana la geynayaa meel qarsoon. Waxaana lagu dhahaa dilkan iyo faaqan iskaga bax wuuna diidaa. Kadibna inuu xanaaqayo wuxuu ku ridaa aashita meesha taalay ayagoo fiidiyoo ka duubaya. Kadibna midkiisa oo si xun aashitada u gashay ayay waxay kusoo tuurayaan bulaacada. Waxaana baaritaan ku sameynaya booliiska. Sidoo kale Victor wuxuu leeyahay xiriir. Dhanka kale qoyskiisa waxay ka fikirayaan sababta loo dili karo Victor. Waxaa dibna loogu celinayaa hadda ka hor mar qoyska qolo burcada ay la soo hadleen ayagoo ka walwalayo. Qoladii burcada waxaa u imaanaya Marcos asagoo si xun u dilayo oo meeshaas waxaa ka dhacaya dagaal adag asagoo seef iyo hubka noocyadiisa kala duwan u adeegsanayo. Kadibna waxaa dibna loogu soo celinayaa qoyska. Waxaana arkaynaa Victor iyo qoyskiisa. Waxaana aad iskugu dhawaa Victor iyo Marcos. Kadib waxaa arkaynaa dhimashada walaalkiisa oo kasoo qayb galay Marco. Wuxuuna dhahayaa ciddii walaalkayga dishay meel kasta ay galaan ma ka daba harayay. Dhanka kale Marcos waxaa celinaya walaalkiis ka weyn oo cidda maamulo. Waxaa lagu magacaabaa George Peter waana ninka cidda mas-uulka ka ah. Wuxuuna dhahaa sidee ku dii karaa cidda walaalkayga sida xun u dishay. Dhanka kale waxaa ogaanaynaa Marcos inuu yahay wiil ay cidda soo fiirsadeen aysan dhalin. Dhanka kale Marcos waxaa kusoo laalaabanaya xusuusta walaalkiisa Victor. Dhanka kale waxaa arkaynaa Victor saaxiibkiisa oo soo xasuusanayso. Waxaana lagu magacaabaa Lisha. Victor wuxuu xiriir la lahaa gabadhan oo lagu magacaabo Lisha. Marcos asagana wuxuu jecel yahay gabadhan oo lagu magacaabo Maria. Dhanka kale booliiska waxay baaritaan ku sameynayaan dilka Victor. Laakiin dhanka kale qorshaha waxaa dhinac ka socday koox kale oo isku duuban oo dilay Wasim. Ninkan oo lagu magacaabo Tony Isaac wuxuu rabaa inuu ka badbaadiyo qoyska George Peter. Wuxuuna daboolayaa dambiyada wax kastana way ka shaqaynayaan asagii wiilkiisa Faisal. Kooxdan waa koox isku duuban waxaana ka mid ah ninka lagu magacaabo Tony waana madaxa kooxda. Waxaana kooxda ku jira wiilkiisa Faisal. Wax kastana waxay u sameynayaan si ay u qariyaan cidda ka dambeysa dilka Victor. Victor walaalkiisa wuxuu dilayaa qof kastoo looga shakisnaa dilka Victor. Dhanka kale booliisku waxay sameynayaan baaritaan aad u adag. Dhanka kale Marcos waxaa baaritaan la sameynayay dadkii walaalkiisa dilay isagana ma ogeyn. Wax kastana ayaga ka daboolay. Kadibna wuxuu imaanaa meeshii boxerka ee habeenkii walaalkiisa joogeen. Meeshaas dagaal ayuu ku galaa. Ninkii meesha mas-uulka ka ah ayuu wuxuu weydiinaa wax ku saabsan walaalkiisa. Laakiin wuxuu ogeyn in gadaashiisa uu joogay ninkii walaalkiisa dilay. Asaga ayaana caddayn kasta tirtirayay. Dhanka kale burcadii waxay dejinayaan qorshe aad u weyn. Waxayna sameynayaan si kasta oo lagu qarin karo caddaynta Victor. Dhanka kale qoyska Marcos waxay wadeen dadaal aad u adag ayagoo wax kasta raadinayo. Marcos wuxuu arkayaa in lasoo dhaawacay walaalkiisii ka weynay wuuna xanaaqayaa. Kadibna wuxuu raadinayaa wax kasta oo caddayn ah. Markii dambe ayaa waxaa arkaynaa ninka ciidanka ee waxaa loo keenayaa caddayn inay kaamirada duubtay. Kadibna wuu soo qaadayaa wuxuuna u keenayaa ninkii ka sarreeyay. Laakiin ninkii ka sarreeyay waa nin jaajuus ah. Xogtana wuxuu u geynayaa burcadii. Kadibna ninkii ciidanka ahaa habeenkii ayaa la dilayaa. Ninkii caddaynta keenana waa la afduubanayaa. Dhanka kale qoyskii waxay ogaanayaan fiidiyooga. Waxayna soo wacayaan Marcos oo xilligaas la socda ninkii walaalkiisa dilay. Waxaana la tusayaa qaabkii walaalkiisa loo dilay asagoo qofka xaqiig looga hayo. Marcos gacanta ayaa lagu dhigayaa asagoo si xun loo jirdilayo oona laga badan yahay. Meeshaas waxaa gacanta looga goonayaa saaxiibkiisa wuuna xanaaqayaa asagoo meesha dhiig badan ku daadinayo oona wax ka jixin. Wuxuuna la galayaa dagaal aad u adag. Meeshaasna waxaa ku daadanaya dhiig badan. Kadibna wuxuu gacmaha iyo lugaha ka jirayaa kuwii la dagaalayay. Asagoo dil raba ninkii walaalkiisa dilay ayuu wuxuu u sheegayaa inay dumaashidiisa gacanta ku hayaan. Marcosna sababtaas ayaa ka dhigaysa inuu iska daayo. Kadibna wuxuu kusoo laabanayaa qoyska asagoo ka fikiraya dumaashidiisa. Dhanka kale wuxuu gacanta ku dhigayaa kuwii walaalkiisa dilay mid ka mid ah. Wuxuuna dhahay sheeg meesha dumaashideeda lagu xiray. Wuuna diidayaa. Kadibna oksijiin ayuu ku furayaa wuuna ka tagayaa. Kadibna wuxuu ogaanayaa meeshii dumaashidiisa ku xirneed. Wuuna imaanayaa asagoo dagaal adag la galaya ciidamo badan oona xirfadiisa sare adeegsanayo.
meeshasna waxaa ku daadanaya dhiig badan mana laisku jixinjixaayo. Waxaana meeshas ka dhacaya dagaal adag, waxaana dagaalamaya ilaa dabaqa u sarreeya oo imaado. Meeshasna waxaa lagu diyaariyay niman adag oo gacmahooda ku shaqaysto, wuuna la dagaalaya, wuuna ka adkaanaya. Kadibna wuxuu imaanayaa meeshii ugu sarreysay, waxaana loo sheegaya in dumaashidiisa halkan joogin oo wiilkiisa hayo. Marcus wuxuu u imaanayaa wiilkiisa asagoo u keenaya aabihiis gacantiisa, wuxuuna gacanta ugu soo gooyay meeshii. Kadibna wiilkiisa taas waxay ka dhigaysaa inuu sidaas kusoo fasaxo dumaashidiisa. Dhanka kale markuu imaado meesha aabihiisa uu joogay, nasiib darro waxaa lagu qarxinayaa bombo, oo sidaas ayuu aabihiisa si xun ugu dhimanayaa. Kadibna guriga waxaa dib lagu soo celinaya Leisha. Kadibna Marcus waxaa celinaya walaalkiisa ka weyn George Peter ayaa dhahaya tilaabo ha qaadin. George Peter wuxuu dilayaa qof kasta oo ku lug leh dilka Victor. Dhanka kale Faisal wuxuu u imanayaa walaalkiisa ka weyn oo lagu magacaabo Cyrus, waana nin dilaa aad u weyn oo aanan wax ka jixin, wuxuuna u sheegayaa dilka aabahooda Tony. Wuxuuna soo aadaya xaafadda, wuxuuna Faisal ka ogaanaya cadowgiisa meeshay ka jeecan yihiin. Waxaana arkaynaa Leisha inay foolanayso. Kadibna burcadii waxay soo weerarayaan xaafadda, waxayna deminayaan nalka. Laakiin Marcus waxaa celinaya walaalkiisa ka weyn George Peter, wuxuuna dhahayaa aniga ayaa la dagaalamaya, adiga tilaabo ha qaadin. Kadibna gudaha markay soo galaan waxaa hal u dilaya George Peter, laakiin banaanka waxaa jooga Cyrus iyo walaalkiisa ayagoo xaafadda murba iyo hubka noocyadiisa kala duwan kusoo tuurayo. Kadibna gudaha ayay u soo galayaan. Marcusna wuu isceli weyna, wuxuuna go'aansanaya inuu dagaalamo, laakiin waxay gacanta ku dhigaan George Peter iyagoo qoyska intooda kala helayo. Waxna uma jixinjixayaan, waxay dilayaan qoyska. Dhanka kale Marcus wuxuu la dagaalamaya ciidamada, laakiin waxay gacanta isku dhigayaan Cyrus isagoo Marcus laga awood badinayo. Dhanka kale Cyrus iyo walaalkiisa waxay dilayaan qoyska Marcus ayagoo si xun u dilayo. Waxayna helayaan Leisha iyadoo dhalayso, hablihii ka dhalinaya ayuu meesha ku dilaya Cyrus, waxaana kasoo saaraya ilmihii uuna soo qaaday. Marcus waxaa hortiisa lagu dilaya saaxiibtiisa Maria, asagoo aad uga xun ayaa la dilaya qoyskiisa dhan, waxna lagama soo reebayo. Cyrus wuxuu sii qaadanaya cunugii Victor, laakiin Marcus weli wuu noolaa. Kadibna wuu labisana asagoo gudasho u socdo, wuxuuna imaanayaa meeshay joogeen Cyrus asagoo ciidamada hal u dilayo. Waxaana aad uga xumaanaya Cyrus asagoo dhahaya ninkan xala googooyo. Laakiin Marcus ciidamada inuu kasoo korboodo ayuu wuxuu u imaanayaa Cyrus asagoo soo weeraraya, laakiin waxaa kasoo gaaraya ciidamada Marcus oo dagaalamaya asagoo hubka noocyadiisa kala duwan adeegsanayo. Wuxuuna meesha ka helayaa qori oo ciidamadii ayuu baas ku furaya wuuna leynayaa. Kadibna wuxuu arkayaa cunugii Victor oo aashita agtiisa yaalo. Kadibna waxay isdagaalayaan Cyrus iyo walaalkiisa, si xun ayuuna u dilayaa. Kadibna Cyrus waa laga awood badinaya, walaalkiisana waa la dilayaa, wadnaha ayaa laga soo bixinayaa. Cyrus wuxuu damcayaa inuu cunuga meesha ku rido, laakiin qoorta ayaa laga jarayaa oo cunuga waa la badbaadinayaa. Asagana aashitada ayuu ku dhacayaa. Marcus wuxuu kasoo tagayaa meesha asagoo ciidankii baabi'iyey. Sidaas ayuu filimkeenu ku dhammaanayaa.